nabiga waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam ayu dhanbi akbar dhanbi la gala kee u weyn baa nabiga leeyahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak inaad ilaahay makhluuqaadkiisa kala mid dhigto oo aad la barido oo la caabudo oo ilaahay adoomadiisa isku mid ka dhigto taasaa dhanbi la gala ugu weyn waxa la yiri dhanbigee ku xiga wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak inaad ilmahaaga disho adigoo ka baqaya inuu wax kula cuno iimaan la'aan inaad ilmaha u disho si carabtu ahaan jireen haddana adduunka la inoogu sheekeeyaba carruurta iska yareeya oo maxaa dhacay adduunkii cunto la'aan buu waajahaya war ma idinka cuntadooda qoray cuntadooda ilaahay baa qoray risqooda ilaahay baa qoray maalinkuu ilmuhu adduunka imaanayo arsaaqdiisii waa qorantahay waana la imaanaya WHO ma dhihi jireen kuwii meelaha WHO raashinka ma qaybiso iyadu ma bixiso arsaaqdana ma keento sooma marka ilmahaaga inaad u disho ama ula dagaalanto carruurta inaad badiso calashaani risqooda ayadana waa dambiga xiga carruurta inaad disho calashaani inayna wax kula cunin ka xiga muxuu yahay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la weydiiyay dambigeen ku xiga an tuzaniya halilata jarika inaad la zinaysato dariskaaga xaaskiisa zinada kala weyn iyadoo zina wada ah iyo haddana dariska markay ku saabsan tahay waa zinooyin ee hal zina ma haddabaad fitnaysantaho balaayo qabto duurka aad maxaa dariska dib ugu soo celiyay لأن حقوق دي درسنimada oo halis ah baad meel kaga dhacaysa ayadoo zina ay tahay baa hadana meel kaga dhac darisnimadii bay leedahay ruuxa dariskiisa meel kaga dhacna waa ahlu naar sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam marka ilmaho la dilana waa qaraabo goysnimo iyo dil nafo wada socdo waa darisko laga zinaysta xaaskiisa ama gabdhiisa lagu xadgudbana waa dariska xuquuqdiisu ku xadgudubtay iyo marka labaad oo zinadii ah nabigu sallallahu alayhi wasallam sadaas ku xijiyay markaas wuxuu dhigi jiray Abdullah haddaad rabtaan markhaatigeeda akhriya buu dhigi jiray aayadan walladina la yad'una ma'a allahi ilahan aakhar sifada toddobaadi wax weeyaan sifada toddobaadi wax weeyaan ee ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa ta'ala ibadur rahman illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan wa sifatu tawba ilaahay way u soo noqdaan dunuubta way ka soo noqdaan way ka xumaadaan lama dhihin dambiga ma galaan kullu bani aadam khata dambiga way gali kullina waa la wada dambaabi laakiin maxaa lagu kala fiican yahay waxa lagu kala fiican yahay soo noqoshada qaarna dambiga markay galaan bay sii wataan oo ku dhintaan qaarna dambiga markay galaan way isxusuustaan oo way ka soo laabtaan allah marka wuxuu ku amaanay way toobad keenaan ilaahay bay dambi dhaaf weydiistaan khaladka way ka soo noqdaan waxay la mid tahay oo kale aayada rabbi yiri tabaaraka wa taala walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allah dambi falhun haday sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay bay xusuustaan fastaghfiru li dhunubihim markaas dambiyadooda weydiisay ilaahay inuu dhaaf ومن يغفر الذنوب الا الله يا دنبيده dhaafon allah in tabaaraka wa taala ilaahayna waa u dambi dhaafaa laana wax way tawbadu waa dariiqa liibaanto ruuxa hadii ilaahay waafajiyo markuu dambi galaba inuu soo noqdo waa ruux liibaanay wa tuubu ila allahi jamii'an ayyuha almu'minuuna la'allakum tuflihun tawbadaas liibaantu ku jirta dasdaradeed allah adoonkiisa tawbadiisa wuxuu ugu farxaa si aad u daran ilaahay waa kugu farxaya inaad soo noqoto marka dambi gasho hadii aad shuruudi la timaado oo ilaahay waa ku dhaafay hadaad hadana ku noqoto oo hadana soo laabato wuu ku dhaafay hadaad mar saddexaad gasho oo soo laabato waa ku dhaafay inta aad soo noqonayso ilaahay waa ku dambi dhaafay waa rajagelin ilaahayna rajagelin naxariistiisa waa ilaahay adoomadiisa inuu fogeeyo marrabo inuu dambiga ku tuurayo wasakhda marrabo ilaahay wuxuu rabaa inuu soo dhaweeyo khaladka waad galeysaan laakiin soo noqdo ha ku dhimanina isku halmaamina saasa la leeyahay sifadaas ay leeyihiin طيب iyada kaliya maaha ee tawbada qayb waxa waaye
tawbada afka ah iyo mid ficilaba way jirtaa xasanaadka iyo wanaagaad sameynaysa laftooda tawbadii bay ka mid tahay dunuubta waxyaalaha ilaahay ku dhaafo soo noqosho iyo dambi dhaaf weydiisi carabkaana waa lagu dhaafaa acmaasha aan samaynayna khayraadkaana ilaahay dunuubta waa ku dhaafaa wadalika fadlullahi tabaaraka wa tacaala طيب صفة السديدات وحوي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما زور كبنت شركك باطلك وحيالها حنحن كوبها حنحن حفلتها حنحن عيدها حنحن متقا ملحن محاضران hadday dhacdo ayagoon ku talagelin inay ku soo hagaagaan oo soo maraan marru kiraaman ayagoon ku wasakhoobin bay dhaafaan zuurka waxay yidhahdaan culimmadu waa xumaan oo dhan waa laqwiga waa baatilka waa fisqiga waa kadibka waa shirkiga waa acyaada gaalada waa xafladaha baatilka ee xunxun ee xumaanta lagu hayo ma xaadiraan baa la yidhi tabaaraka wa tacaala way ka fogaadaan hadday dhacdo uun iyagoon ku talagelin inay ku soo hagaagaan oo soo maraanna way dhaafaan marru kiraama saas wey waxaa la rabaa meelaha xunxunka tegitaankoodu iimaankaagana waa dhaawacaysaa akhlaaqdaadana waa dhaawacaysaa waxaana laga yaabaa sida marar badan dhacday in adigoo xumaantaa ku dhex jiro dadkaa xun dhex taagan in ilaahay tii ilaahay kuu timaado marka wax weeye meelaha xunxunka dabeecadda dadka muuminiinta cibaaduraxmaan way ka fogaadaan mana xaadiraan ilaahay sifadaasuu siiyey tabaaraka wa tacaala ma xaadiraan meelaha xunxun waxay la mid tahay yani wax weeyaan aayadaha ilaahay meelo kale ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo inay ka fogaadaan xumaanta ka fogaadaan tilmaamay sifada sagaalaadi waxa weeyaan walladina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha summan wacumyaana ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyiguu soo dejiyey kama ay indhalaa kamana ay dhagalaa dhagala'aan iyo indhala'aan iyo faham la'aan iyo fiqhi la'aan diinta kama haysato iskama daataan markii ilaahay aayaadkiisa lagu waaniyo oo loo sheego iskama daataan ayagoo dhagala oo indhala summan wa cumyaana maxaa laga wadaa bimacnaa ayagoon waxba ka fahmin wixii lagu waaniyey wixii loo sheegay iyagoon waxba ka fahmin way fahmaan oo markii wax loo sheego qur-aanka iyo waxyiga loo sheego quluubtoodu way isbedeshaa waata sifaadkooda meelo kale ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum markii ilaahay la xuso quluubtoodu way cabsataa way baqdaa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana ilaahay aayaadkiisa marka lagu dul akhriyana iimaan bay u siyaadisaa way isbedelaan ilaa heer waxay gaadhayaan ishoodu ay ilmayso suuratu bani israa'iil ama suuratu lisraa aakhirkeeda sidii ilaahay ku tilmaamay way daadanayaan ayagoo khushuucsan oo ooyaya laanna qur-aankii baa saamaynaya dikrigii wacdigii baa saamaynaya noloshoodu wax ka bedelaya haddaad aragto marka adigoon waxba iskaa kaa bedelayn qur-aan baad akhrin mid baad dhegaysan wacdi baad dhegaysan isbeddel ma leh bimacnaa wax weeyaan khatar baad ku jirtaa marka sifaadkoodu way fahmaan ka fahnay ruux hadduusan diinta fahmaynin baranaynin dhegaysanaynin maqlaynin akhrinaynin markaasi sifaadkii cibaaduraxmaan ma laha bal qur-aanku wuxuu inoo sheegay fii suurati alacraaf ilahay wuxuu ku sheegay dadka naarta loo abuuray inay yihiin walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waاlins in badanoo insigii jinniga ka mida jahannamaan u abuuray buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala tilmaantoodu maxay tahay dadka jahannamo loo abuuray gelay lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha qalbiyay leeyihiin laakiin waxba kuma fahmaan diintii khayrka kuma fahmaan dhagay leeyihiin laakiin khayrkiiyo diinta kuma dhagaystaan indhay leeyihiin laakiin khayrkiiyo diinta kuma akhriyaan oo kuma arkaan kuwaasi waa kuwii jahannamo loo abuuray waa soomaali cagsi waxaa cibaaduraxmaan way fahmaan wayna ku saamoobaanoo isbeddel bay ku samaysaa sifadaana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa siiyey
oo sifaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay bay ka mid tahay sifada tobanaad oo u dambaysa oo halkaa ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala waxa weeye والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا بصف والله والشيء بإلهي ويدي سنة صفتك هذه وحوي حاسس كودا يعرور توضو إنه إلهي القبوس أقدقه ماذا كفر حان محل وضع علماء التفسير كوحي كفسرين هو إلهي كحرا وإلهي أطيعا يا إن إلهي أقدقه عرور وناكسن حاسس وناكسن إلهي كحرا دينتا كحرا عباديستا تربييسا آخرة أشقيستا إلهي الرالي قليا مركز علمها إحاسسك كفرح قليان يا مركز على الشعل هذا مركز أردت عرورت هذه خيرك كود داليس وتكنيس وصوميس وعلمي قبرانيس غيرك عاقي حاسك عاقي وإلقبوسي واحد روح مؤمنك وحو كو إلقبوس هذا كفر حدا وضاع هذا صوما لكن هذا درجت يجي بروفيسور رع يا وبي اتش دي حمبارسن ومحوها هي عافيمات iyo injineeriye iyo ka wada baxo adduunka madax ka wada laakiin aan ilaahay aqoonin ruuxa muuminka farax gelin